beenta ma socod dheera xaqiiqooyinkuna waa kuwo la dhaha qaado xitaa haddii ay ka soo dib dhacaan waqtigii ay ku habboonayeen. haddii uu shalay tilmaamay in 1000 gabdhood oo guur ka codsado uu kala diray kana soo xushay tiro yar oo uu ka sii xulan doono hal gabar, maanta isaga ayaa ka shalaynaya wixii uu sameeyey. waa kuma Ali, faqiirka taajirka iska dhigay ee gabdho badan beenta ku soo xirigeliyey, kaasi oo xaqiiqadiisa la soo helay saacadihii la soo dhaafay. muxuu yahay muuqaalka laga qariyay ee ku saabsan xaqiiqadiisa inuu xasla yahay? waxa keenay inuu sidan u qaawiyo jirka gabdhaha Soomaalida ay kula nool Sweden. waxa ku qasbay inuu barankii noocaana sameeyay iyo jawaabta uu ka bixin doono oo la wada sugayo, iyo arrimo kale ayaan muuqaalkan idinkugu soo koobi doonaa. balse marka hore inta aan guda galin waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad like saarto muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan. like saar si aad inoo dhiirigeliso, sidoo kalena u sheer garay asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. haddii aad nagala socoto barta Facebook follow dheh page-keena, haddii aad YouTube-ka naga daawanaysana subscribe saar oo gambaleelka furo. ku mahadsan tahay sida aad inoola jaanqaadayso. Ali waa wiil Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha, si gaar ah Sweden, balse wuxuu Soomaalida uga yaabsaday barnaamij uu ka soo shaqeeyay oo uu isaga dhigayo wiil taajir ah oo xoolo badan ku dhaqanaya baadiyaha Sweden. waa xaqiiqiin uu xoolo dhaqato yahay, laakiin xoolahan ma isaga iska leh mise waxa uu goobtan ka yahay shaqaale aan qaadan mushaar sare? muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa. Ali waxaa la isku raacay inuu yahay wiil ku nool Sweden, balse aan ahayn taajirka iska leh goobta uu muuqaalada ku soo duubo. shakhsiyaad ku nool Sweden ayaa baaritaan ku sameeyey waxa uu Ali qabto, halka uu degan yahay, iyo waxa ka jira inuu leeyahay xoolahaasi oo dhan. gabadha uu guursanayana uu ka bixin karo 200 oo lo'aad. sida uu ku faafiyey barihiisa bulshada, Ali waxa uu doonayay gabar kula noolaata baadiyaha maadaama uu taajir yahay, lacag badan uu haysto. gabdho badan ayaa ka soo muuqday kaamirada YouTube-kiisa, kuwaasi oo sheegay inay ka kala imaadeen wadamo dhowr ah oo ku kala yaala qaaradaha caalamka sida Amerika iyo Yurub. balse xitaa taasi dhamma aysan noqon, oo gabdhuhu isla Sweden ay kula nool yihiin. isla barnaamijkan uu la soo muuqday Ali si uu dadka Soomaalida isku baro waa mid hore loo sameeyey oo ay sameeyaan TV laga daawado Sweden. Ali waxaa la soo ogaaday inuusan ahayn malkiilaha goobtan, isla markaana uu ku nool yahay halka loo yaqaano Sundsvall oo dhacday Sweden, taasi oo ah meel ka fog halka uu xoolaha ku dhaqdo. Ali waxa uu qaatay si raacidda barnaamij ka baxa qaar ka mid ah TV-yada Sweden, kaasi oo ciwaankiisu uu yahay beeralayda waxa uu doonayaa xaas. intaas kaliya maahan, waxaa la isku raacay in Ali uu ugu talagalay in dadka Soomaalida uu kaga yaabsado, sidoo kale uu dadka oo dhan isku baro. xisaabta ku darso u qaado in waxaan uu sameynayo dhammaantood yihiin filim laga wada shaqeeyay. Ali xogihiisa sirta ah ee la soo bandhigay waxa ay tilmaamayaan inuu xasla yahay, laakiin ku soo celcelintiisa inuu yahay wiil ku duqoobay inuu single yahay ayuu mawduuciisa uga dhigay suuqgeyn weyn oo dadku ay ku rumaysan karaan inuu yahay mid aan xas lahayn. sida ay filashadu tahay, si degdeg ah ayuu u tilmaami doonaa in gabdhahan mid uu doorto uu ka waayay, ama isaga iyo gabdhaha oo dhan waxay sheegi doonaan in barnaamijkan ay ugu talagaleen inay dadka ku soo jiitaan oo uu barank yahay. Ali waa wiil lagu yaqaano barankiyada, waayo wuxuu hore barankiyo badan ugu sameeyey dadyo kala duwan, isagoo muuqaaladaasina soo geliyay bartiisa YouTube-ka dad badan ay daawadeen. dadka qaar waxay aad uga xumaadeen inuusan asturin gabdhihii ka soo muuqday YouTube-kiisa oo dhammaantood qaawanaa, taasi oo keentay in baaritaan lagu sameeyo wiilkan. haddii aan xaqiiqadiisa hadda la dhaha qaadin ay keenayso in dhalinyaro badan oo Soomaali ay ku daydaan oo iyagana gabdho guryahooda ku jira ay bannaanka keenaan iyagoo qaawan oo sameynaya isla filimka noocaani oo kale ah. Ali hadda isaga ayay jawaab ka rabtaa dhammaan cadeymaha la keenay iyo kuwa la soo wado ee muujinaya waxa uu dhab ahaan isagu yahay. aniga ahaan ma xumo in qofku uu qorsho baraha bulshada lacag uga sameyn karo la soo muuqdo, ama qof ha ku daydo ama yuusan ku dayanin. laakiin fikradda ah in gabdhaha ka soo muuqda YouTube-kiisa ay ahaayeen kuwo dhammaantood qaawan, iyo sharaf dhaca in gabdho badan oo Soomaaliya oo sharaf leh oo ahaa kuwii waalidkood laga doonan jiray iyagoo gurigooda jooga inay safarro soo galaan oo sidii inay shaqo codsanayaan ay saf u galaan guurka wiil xoolo dhaqato ah. ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay, adiga ahaan sheekada wiilkan maxaad ka fahantay? weli miyaad aaminsan tahay
in filinkan uu la soo muuqday uu dhab yahay mise waxaad ogaatay inuu baranka yahay. Ha hilmaamin inaad muuqaalkan like saarto, haddii aad page-ka naga daawanaysana aad follow dhahdid, haddii aad YouTube-ka nagala socotidna please subscribe saar channel-keena oo gambaleelka furo si aysan kuu dhaafin barnaamijyadeena xiisaha leh ee aan halkan ku soo bandhigno.